Hello, السلام عليكم أصحاب سرق. maanta waxa waa la qorraxaysanayaa. Waxa lagu qorraxaysanayaa banaanka. Waa aniga gabar yar oo habarir u ahay. Aamin hay maxaa dhahaysaa? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxa waa familkii oo qorraxaysanaya. Waa nastaaxay gabar yar habarir u tahay magaca Amina. maxaa dhahaysaa ummadda Soomaaliyeed maxaa dhahaysaa? Waa idin salaanay meel kasta aad joogtaan. maanta waa qorraxaysi iyo dalkan joogna xagee joognaa dalka Sweden baan joognaa laakiin xagee ka timid markii hore xagee ka timid Soomaali weyn baa ka timid haye maxaan dhahaynaa marka bulshada Soomaaliyeed qorrax wanaagsan waa Sweden oo qorrax ah ma sha Allah ah waa la qorraxaysanayaa banaanka la farfadhiyaa ummadii oo dhan dadkaasaan ka midnahay maxaa dhacay ma hargabsanta waa hargabsantahay miya waxa kugu soo biday miya marka waxaan leenahay qorrax wanaagsan Sweden iyo maanta oo Khamiis bisha Agoosto kowdeeda waa bishii 8aad kowdeedii waxa waa aniga gabadha habarta u nahay halkaasaan qorraxaysanaynaa maanta maxaan soo sameynaa meel waxaan aadnay shista la yiraahdo oo xaafadeena ka mid ah xaafada Sweden ka mid ah soo qadaynay aniga gabadhayda waa soo wareegnay waa soo dukaamaysanay ma sha Allah hooyana hadda naga tagtay maxaan sugaynaa hadda bas baan sugaynaa Soomaa haye maxaa leedahay marka dhalle asxaabahaaga maxaa leedahay asxaabahaaga maxaa leedahay caruurahaaga waxaa leedahay iyo caruuraha oo saaxiibadaaya iyo ciyaalka Soomaaliyeed waxaa leedahay adiga Soomaaliya deganta Soomaa laakiin Sweden baa ku dhalatay Soomaa ana yar tagay ay Soomaaliya Sweden yaa fiican ترتيب Soomaaliya fiican Sweden qashin miya waay maxaa mal qashin maxaa ugu malays waa gabar yar oo Sweden ku dhalatay oo Soomaaliya la geeyay marka waxayba ku leedahay aniga Soomaaliya ku haystaa Sweden ma rabay ku leedahay marka waa ma sha Allah waa gabar yar oo 6 jir ah quraan baratay Sweden laga waday haye maxaa leedahay marka shakada ma wada haye sibaa dadka dhan baa ku fiirsanaya dhowey waxa la rabaa inaad gabar fiican noqotid hayaling maxaan ku ahay adiga waxaan oo taawriyay haye marka waxaan leenahay ma sha Allah waan salaamnay caruurta Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan leenahay qorrax wanaagsan Sweden waa qorrax mararka qaarkood waa baraf laakiin maanta waa arkaysaan waa qorrax arkaysaan meel baan iska qorraxaysanaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa meel kasta aad joogtaan inaad si idin wacnaato wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh